wiil sabool ah oo kalsooni dare qaba ayaa arkay gabar aad u qurux badan oo la yiraahdo Jody isla markiiba waxa galay jacayl laakiin cabsi iyo xishad ayaa ka hor istaagay inuu la hadlo intii uu fiirinayay saaxiibkiisa ayaa u yeeray wuxuuna ka toosay fikirkii markii uu gurigiisa ku sii socday gaarigiisa ayaa salam filaan u xumaaday oo jidka istaagay dadkii kale oo wadada marayay gaar ahaan kuwa taajiriinta ah way ku qosleen oo ku jasjeeseen Jody oo isla markaas arinta artay ayaa ka xanaaqday kadib gaarigeeda ay ka degtay ayada kaliid ayaa u timid oo ay caabisay waxay wada riixeen gaariga waxay muujisay in Jody aysan qiimeyn lacag ama muuqaal balse Jody waxay xiiseynaysaa wiilka oo rabtay inay barato wiilkan waa uu jahwareersan yahay oo ma fahmin dareenka xitaa wuxuu ku yiri waa tagi kartaa Jody arintaas kama quusan oo xiisa ayaa ku sii kordhay si ay ula xiriirto si ul kacay gaarigeeda u celideysay waxayna u timid wiilka si uu u hagaajiyo tanina waxay siisay fursad ay ula hadasho wiilku wuu fahmay inay iska dhigaysa laakiin ma uusan sheegin wuxuuna hagaajiyay gaariga oo muujiyay xirfadiisa iyo daacadnimadiisa Jody aad bay uga heshay waxayna casuumtay haweenka sabtiga saacaduna ay tahay 6 isla mar ahaantaani wiilka farxad ayuu la duulay waxa uu dareemay in jaceylkiisii uu rumoobayo daawada adnaha inaga ilaahin muuqaalkan like saarto page-kan aad follow gareeyo si aan u gaarno 100,000 followers mahadsanid laakiin maxaa dhacay markii uu gurigiisa tagay aabiis ayaa ku amray inuu shaqeeyo maalintaas wiilku wuu diiday waxa uu doortay jacaylka halkii uu aabihii ka cabsan lahaa balse aabiis ayaa si xun u xanaaqay oo garaacay amarkii ma diiday hoo kala briiska bo dadka guriga jooga dhab ahaantii waxay ahayn kuwa la qabsaday rabshada isla mar ahaantaas wiilku wuxuu bilaabay inuu iska difaaco waana talaabo geesinimo leh markii uu rabay aabaha inuu feero wiilkan waxa uu iska qabtay gacanta aabiisa halkaasina waa isaga carray isagoo raadinaya roob ayaana da'ayay wuxuuna galay meel baqaar shiid ah si uu ugu dhunto subaxdiina waxa helay oday meesha lahaa oo u maleeyay tuug wiilka ayaa sharxay xaaladiisa runta ayuuna sheegay odayga qalbiga wanaagsan ayaa u naxay hooy iyo gargaar ayuuna siiyay dhanka kale Jody waxay sugaysay waqtiga ay balmisay wiilkana ma iman waxay u maleysay inuu qiyaamay ayada ma quusan waxay bilowday inay raadiso ugu dambeynna way heshay meesha uu joogo wiilku wuu ka xishooday dhaawacyadiisa madaxa ayuuna hoos u dhigay waxay weydiisay sababta laakiin wuu aamusay markii uu su'aalaha uga jawaabi waayay way xanaaqday waa ayna ka tagtay intii sii socotay ay istaagtay dareenkeeda ayna ku qasbay inay runta ogaato kadib waxay weydiisay haddii aadan erwin maxaad iga ogolaatay kulanka waxaan moodayay inaad fahmi karto sida aan ku dareemayo isaga wuu doonayaa laakiin waa mugudbe balse inta ay sii socotay ayuu ka daba cararay mana rabin markaan inuu iska lumiyo markay is eegeenna waxay aragtay dhaawac ku yaala wajigiisa halkaas ayana wax walba ka fahantay sababta uu aamusan yahay waxay heleen meel degan waxayna bilaabeen wadahadal dhab ah labadoodaba waxay wadaageen noloshooda xanuunkooda iyo riyooyinkooda tani waxay noqotay xiriir qoto dheer oo ka badan muuqaal ama lacag inkastoo aysan ahayn dhid romantic caadi ah haddana wuxuu ahaa mid dhab ah wiilka ma awoodin inuu hadal ku muujiyo jacaylka halkii uu ku oran lahaa waan ku jeclahay wax qurux badan ayuu siiyay Jody waxay fahamtay macnaha dareen ayna ka qaatay ayada ayaana qaaday talaabada waxayna siisay dhunkasho halkaas ayna ku noqdeen lamaane dhab ah